بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مروو إيه مدن دمان والاليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ولول حسن كلمية waxaan ka mid ahaa guddiga kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkan inaan idinkula wadaago sanadkii aan jirnay wixii noo qabsoomay iyo meesha aan ku socono. Marka ugu horeyso kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed waa kacdoon caalami ah oo aan dhinacna raacsanayn oo ay ka kooban yihiin ku dhawaad 9,000 oo haween ah oo Soomaali ah oo dunida dacaladeeda kala jooga wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba, kuwaas oo ay ka go'an tahay joogteynta horumarinta haweenka iyo ololeynta xaquuq u raadinta haweenka. Marka aan leenahay sinaanta waa xaquuq u sinaanta, hoggaanka u sinaanta, in qof walba waxa ay awoodo ee wadankeeda u qaban karto oo aan looga tegin ayadoo cilmi leh, khibrad leh, karti leh, la yiraahdo haween baa tahay adiga waxaad ku roon tahay kaliya guriga. Waan ognahay inaan sharaf iyo maamuus iyo haybad intaba aan ku leenahay bulshadeena dhexdeeda markii ay noqoto hooyanimo, haween guud ahaaneed, balse waxaan u ordayno ama xaquuqda aan raadinayno waxay tahay doorka siyaasadda iyo hoggaanka haweenka. Hadafkeena ayaa wuxuu yahay in la joogteeyo dhaqdhaqaaqa haweenka Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadiisa jooga oo ay ka go'an tahay in ay sare u qaadaan sinaanta jinsiga iyo tan bulsho ee golaha go'aan gaarista arrimaha dadweynaha iyo higsiga 2016 iyo wixii ka dambeeyaba. SGEM oo ah magaca Ingiriiska markii la soo gaabiyo ayaan isticmaali doonaa. SGEM waxay si gaar ah oo cadaalad ah u falanqaysay jawaabna ka bixisay qoraalada higsiga 2016 ee dowladda federaalka. Dastuurka qabyo qoraalka ah ee dowladda federaalka sidoo u dhan yahay ayaan waxaan ku sameynay dib u eegis annaga oo ka bedelnay kuna darnay waxyaalihii aan u arkaynay in ay ku habboon tahay in ay sidaa u qoraato si bulshadu si siman ay xaquuqdooda u wada hesho. Waxaan kaleeto ayagana aan indhaynay oo aan u koorgalnay dastuurada iyo qorshe siyaasadeedka dowlad goboleedyada si loo gelsho jaangooyada jinsiga iyadoo ujeedadu ay tahay in la jideeyo ugu yaraan 40% in ay noqdaan haweenka jagooyinka la soo magacaabayo ee heer dabaqada sare ama dabaqada dhexe. Waxaan sameynay oo kaleeto in aan markii aan dokumentiyada wada akhrinay aan qoraal soo saarnay, qoraaladaas oo aan u kala dirnay meelihii ay quseeyeen markay noqoto dastuurka federaalka. dastuurkii aan dib u eegista ku sameynay waxaan u dirnay guddiga dastuurka qabyo qoraalka bixinta ee baarlamaanka federaalka. Waxaan kaleeto oon warqado u kala dirnay dowlad goboleedyadii markaa jiray. Waxaan ka hadlayaa waa sanadkii horeeto bilihii u dambeeyay maadaama SGEM ay soo ifbaxday June 13 2015 iyada oo lagu daafuray magaalada Minneapolis ee cariga Mareykanka. Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa markaa diyaar ahaa. Intoodaba mid walba waxaan u dirnay warqad qusaysa arrimaha ayaga maamulkooda quseeya iyo annaga sidaan u aragno doorka dumarku inuu yahay iyo maqnaashada ama ka muuqasho la'aanshada haweenka ee hoggaanka sare. Intaa markaan sameynay waxaan u gudubnay jawi kaleeto
oo markaa ku socda sidii maaragtay lagu baraarujin lahaa bulshada dhammaan gaar ahaan haweenka. waxaan bilownay inaan qabanno shirar goos ah. shirarkaas oo kii ugu horreeyey markaa laga qabtay magaalada Toronto ee Canada, kii ku xigayna laga qabtay magaalada Muqdisho Soomaaliya. waxaan kaleeto oon markaa galnay sidii aan bulshada isugu shaacin lahayn, u ogeysiin lahayn in aan soo ifbaxnay, joogi doonno, waxa aan u ordayno oon u cararaynana ay tahay in horumarka bulshada haweenku ay ka mid noqdaan. bulshadeennu ma ayna jiri lahayn dagaalkii sokeeye kadib haddii haweenku ayna u kicin. xaqna ma aha in haweenkii bulshada badbaadiyey la yiraahdo miiska go'aan u gaarista arrimaha bulshada kama qayb qaadanaysaan, ama 1 iyo 2 ayaa idinka gelaya oo aan cod aqlabiyad leh aan helaynin. marka waxaan kaleeto oon ka qayb qaadanay oo markaa aan kusoo bandhignay hawsheena iyo jidka noo jeexan Somali Studies oo ah cilmi baarista Soomaaliyeed 3 sanaba mar dunida dacaladeeda ka dhacda. sanadkii hore 2015kiina ka dhacday magaalada Helsinki. waxaa noogu xigtay in aan maaragtay ayadana sidoo kaleeto aan kasoo bandhigno mahadi ha ka gaartay Kate Media oo noo suurta gelisay inaan ka mid noqono dadkii halkaa ka hadlayay Somali Week Festival bishii November ee sanadkii 2015.